السلام عليكم أدعي الإسلامي صاحبي muuqaalkiina maanta waxaan idinku bari doonaa hadduu ay ka raadinto sida loo sameeyo end-to-end encrypted oo messengerka loo xalay cilada sida ku haysato sida ciladan oo kale ciladan haday ku haysato waxaan hadda ku hayaa xalkeeda fadlan waxaan kula wadaagi doonaa two step-yadaas oo kale ah haddii aan step-ka ugu horeeyo oo ku xalismi waayo waxaan isku dayaynaa step-ka labaad oo ah inaan la xiriirno qolada facebookgaas ayaan la xiriiri doonaa kadibna iyaga ayaa markaas jawaab ka sugid banaan hadday ku xalin waayeen oo waxa ogaataa in ay tahay cilad markaas dhammaan messengerada dhan ee ka jirto oo cilad taagan inay tahay fadlan ayaan hadalka ugu daarnay muuqaalka faahfaahsan isla daawano intaan muuqaalka ugu digan fadlan ka codso haddii channelka ku cusubtahay la subscribe iyo like muuqaalka like gare asxaabtada la sii wadaag mahadsanid saaxiibayaal isla bilaawna muuqaalkeena ugu horreyn waxaan tagi doonaa applicationkeena messenger oo markaas cilada inaga hayso oon rabno in cilada aan ka xalino kadib waxaan ku dhufan doonaa ciwaankan sare idinkaaga muuqdo oo ku qoran kor dahab genyo ciwaankaas ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxaan sameyn doonaa end-to-end encrypted ayaa saaran waana cilada aan idin sheegay ciladan qaabka u xalin karaa waxaad u xalin kartaa in saddexdaas dhibcood sare aad martid two step ayaa mari doona labadaas stepna waxaan rajeynaa in maaragtay aad ku bogan doontaan hadda qaybtan ka muuqato restricted iyo waxaa idin calaameeyay verify end-to-end encrypted restricted-ka markaa ku dhufto qaybtaas ayaan kusii dhufan doonaa okay intaan ku dhufanin waan ka wada laaban doonaa kadibna saddex dhibcataga okay sorry qaal noqda waan dib u soo laabanay geeyada ku dhufo kadibna halkan tag kadibna waxaad tagi doontaa restricted qaybta ku qoran tahay restricted sar sida restricted-ka markii uu saarmo ayaa waxaan tagi doonaa saddexda dhibcood ka laabo marka hadda dib u sii laabo okay restricted-ka wuu saaran yahay sida halkaas kaaga muuqato kadibna saddexda dhibic tag kadibna waxaa ku xulan doontaa setting-giga aan ku calaameeyay setting-gaas ku dhufo markaa setting-giga ku dhufatid waxaad tagi doontaa qaybta hoose waxaad ka raadin doontaa privacy and safety markaa aragtid halkaas ayaa ku dhufan doontaa privacy and safety markaa ku dhufatid kadib wuxuu kuusoo qaban doonaa end-to-end encrypted chats qaybtaas ayaa ku dhufan doontaa kadib waxaa ka dooran doontaa security alertyaas ku dhufo markaa ku dhufatid kadibna security alertyaas haddii on ku tahay waxaa ka dhigi doontaa off markaa off ka dhigo oo waa ka laaban doontaa kadibna waxaad tagi doontaa message storage-kan wuxuu kuu sheegayaa waxyaalaha meesha ku kaydsan oo idil haddii cilad jirtana asiga ayaa kuu qoran doono we are finding temporary issues with security storage cilada ayaa ka jirto oo yar loo dhahay loginkaas ku dhufo loginkadan markaa ku dhufatid waxba kama kacsan meelo badan lagama kicinin dib u laaban doontaa marka dib saan ugu laabatid dib u sii laabo okay marka qaybtan waan ku guuleysan weyne waxaan isla gudageli doonaa qaybteena xigta ama qaybteena labaad hadduu bakaraale noqdo qaybtaas xigtani waxaan ku sameyn doonaa sida in maaragtay aan u dirno fariino kale inaad maaragtay u sameyno inaan la xiriirno qolada messengerka ama facebook sa u taqaanin okay saddexdaas dhibic tag qaybteena labaad isla bilaabi doona saddexda dhibic ayaa tagi doontaa kadibna waxaa ku dhufan doontaa qaybta setting-ga oo ku qoran tahay setting-ga markaa ku dhufatid kadib waxaa tagi doontaa qaybta hoose waxaa raadin doontaa report technical problem oo ku calaameyn doono qaybtaas ku dhufo markaa ku dhufatid kadib waxaa sameyn doontaa sawirkan meesha ku saaro uma baahnid iska cancel garee ama iska delete garee kadib meeshan waxaa ku xulan doontaa laba option waa jatis iyo ada labadaas aan ku calaameeyay ka dooro labadaas markaa ka dooratid kadib qoraal yaraa diyaariyaa jira qoraalkaas waxaan idinkula soo wadaagi doonaa hadduu ay bakaraale noqdo dhanka telegram channelkeena ama commentiga binka ugu hore ayaan ku qaban doonaa hadduu ay bakaraale noqdo fadlan haddii inta ka waasid waxaad ka heli doontaa telegram channelkeena kadib sida halkan kaaga muuqato send ayaan doonaa okay aada u mahadsantay dhaheen your feedback helps me waxaan rajeynaynaa inaan feedback-kaaga mid aan ku caawin noqdo kadib okay dhan waan dirsanay oo waan fulinay waxaana halkan ku sugi doonaa hadduu ay bakaraal noqdo 24 hours ama 48 hours laakiin badnaan waxaa u badinaa 24 saacadood 24 saac haddii ay kusoo jawaabi waayeen cilada anaga xaggeeda maahan ee shirkadda xaggeedaba bal marka waxaan idin rajeynaa inaad intaan inka badan aan ku wada guuleysano dhammaanteena qof walba oo ciladan haysato
laakiin waxaa idin hubaa in messenger walbo oo markaas Facebook qof walba isticmaalo inay ciladaas ay ka jirto sababo jira awgeeda ay dhanka shirkadda ay tahay. dhanka shirkaddan hadduu wax uu markaas lagugu dhagana waa sida lagugu dhaga waaye, qofka wax ka bedeli karta mala, anaan wax ka bedeli karin, adaa wax ka bedeli karin, laakiin in case Allah subxaanahu watacaala wax walba ka bedeli karo. marka insha Allah qof walba oo ku xiran Abeka TV waxaan aad ugu mahadcelinayaa samarka iyo dulqaadkiisa oo mar walba inoo muujiyo oona ku xirnaashihiisana aad inuu qanciso. waxaan leeyahay dhammaantiina kun iyo koo jeer aada u mahadsantihiin. tan iyo intaan ku kulmi doono muuqaalcaynkan oo kale suuri intaan idinka tegin muuqaalkan kan aan bixin waxaan idinka iloobay intaa dhalinyaro tahay waqti ay ka faa'iideyso. fadlan mar dhow waxaan rajeynayaa inaa barnaamij aad iyo aad u kala kacsan inaan idin bilaabo. barnaamijkaasni muddo ayaan ku hanqaltaagayay. insha Allah soo duceeya inuu ilaahay ii fududeeyo. hadduu ilaahay ii fududeeyo barnaamijkaas uu ku guuleysto dad badan oo dhalinyaro ah ku xiran Abeka TV waxaan rajeynayaa mustaqbal fiican, mustaqbalkaas wanaagsan inaan kaalin weyn aan ka qayb qaato ayaan isku dayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. marka qof walbo oo Soomaali Maxamed ah oo haddana jecel inuu hamigiisa ka dhabeeyo waxaan u taaganahay inaan qayb ka mid ah inaan ka qaadano maadaama aan nahay tiim Abeka TV oo haddana tiim isku xiran. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. waxaan idin leeyahay jiro oo jooga kun iyo koo jeerna aada u mahadsantihiin. boqolkiiba boqol mahadcelintiin halkan kuma soo koobi karo. waxaad tihiin tiim igu weyn, sharaf xaggeeda kala cizo iyo karaamaba intaba iyagana gaarsiiyey. hadda waxaan sii maraynaa 11,000 iyo ka badan waxaan gaarsiin karo waa idinka faniskeyga, waa familkeyga mar walba tihiin. horay idinkana aan wadi karo, gadaal idinkana aan hoosigin karo, intaas in ka badan idinkana gaarsiin karo. aada u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan aad daawatay. aadana kaaga mahadcelinayaa kale. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. see you another next video. intaa dhalinyaro tahay waqtigaaga ka faa'iideyso. mahadsanid.